dadka Soomaaliyeed xoolo dhaqato ayay u badan yihiin. Xoolaha ay ku tiirsanaayeen deegaan kasta iyo deegal kasta abaarba ku weynaysa. Buur iyo bannaan meel abaar ka nabad ah ma jiro. Xataa xoolihii webiyada iyo dhulbiyoodka joogay ayaa meel kasta waqtigooda waran. waxayna muuqatay in abaaruhu aanay mar la arag ahayn oo muddooyinkan dambe ay sunnaan noqotay in 2 ama 3 sanaba mar abaaro xun deegaanka ka dhacaan taasoo abuurtay urur joogto ah lamana sahashan karo oo sidaan sheegay nolosha reer guuraagu waxay ku dhex qowday giraan gudna barwaaqo yahay midna abaar yahay mana dheeli tirna oo barwaaqada xoolo badan uma kordhaan intay haysteen ayaa qurux badnaada kadib siday u daawanayaan ayaa abaari la timaadaayo shufka siisa markay caydhoobaan ayay nafta la soo cararaan oo duleedka magaalooyinka iyo tuulooyinka buulal ka dhistaan halkaasna loogu dawaraa hadii inta noloshooda ka dhiman noloshu giraanta labada good ah dhan ma dhaafsana intaynu xasuunahay daa ayuun bay ahayd aan laahday ama 5 tonade la soo dhaafay abaar kasta oo dhacda xoolo-dhaqatada Soomaaliyeed saasay u farmaadnaysa abaar kasta oo dhacda kiis iyo lama filaan ayay nagu tahay abaar kasta oo dhacdana nasiib rabbaani ayaynu ku sheegnaa dad iyo dunya wixii ay dhishana dultooda gashay oo aan la baajin karin ayaynu xisaabinaa qaabkii abaartii hore u leysay ayay tu kastoo xigtaana u leynaysaa waase wax inoo gaara bulshooyinka kale hal god 2 jeer laguma qaniino oo aafo kasta oo la soo gudboonaata cilmi iyo cashar bay ka bartaan waxaanay ka hawlgalaan sida sababtay mar u dhibaatoodeen inaanay mar labada dhibaato kasta oo la soo dirista xigmad waa aragnimo iyo horumar ayay ka dhexlaan in shil dhaco iyo inuu khasaare geysto laba ayay kala yihiin sidaasi la mid ah ayay laba kala yihiin in abaar dhacaan iyo inay farmariyaan oo xoolo inaga dhameeyaan intooda badan sababta xoolaha Soomaalidu u madhaan waa xigmad darro ilmaha cir waqtigiisa ka baaday su'aashuna iyada markasta jawaabta ka hormarta haddii su'aasha sixin jawaabta ma sii karno weligeena dameeraha inuu go'aynaa si orduhu u bogsadaan maayaan xoolo-dhaqatada Soomaaliyeed laba shay inay fahmaan waxay daruuri u tahay inay yareeyaan khasaaraha ka soo gaara abaaraha iyo cirarka baaqda qof kasta oo xoolo-dhaqato ah waa inuu fahmaa sababta xooluhu uga dhintaan ama uga badbaadaan inaanay ahayn in roob la waayo iyo in kale xooluhu waxay u dhintaan gaajo iyo haraad uma dhintaan roob la waayo roob kastoo da'a xooluhu way dhimanayaan haddaan xirada ka sidayn oo aan daaqtigin 5 sano haddaan roob diinna xoolaha ugu weynaanayaan haddii waxay cunaan iyo waxay cabaan haystaan roobka iyo masiirka xoolaha iskuma xidhna midka xidh furtaana waa mid muhiim waayo in roob la helo iyo in la waayo waa shaqo Ilaahay u taal talo kuma lihid wax laga weydiinayaan ma jirto hase haatee in xoolahaagu inay gaajo u dhintaan iyo inay badbaadaan iyo in ay biyo helaan iyo inay waayaan waa arrin awoodeeda taladeeda mas'uuliyaddeeda inta wada adigu leedahay intaan wada ogtahay oo inaad wax ogtahay ayaan ogeynay hore waad u ogid in xoolahaagu roob la'aanta aanay u dhiman waayo haddaad aaminsan tahay in xooluhu roob la'aan u dhintaan hay-adoo maad qayshateen adoo og in hay-aduhu aanay roob shubin roob ma shubi kartid laakiin xoolahaaga waad badbaadsan kartaa haddaad yeeli weydo garo inaad dhibka adigu isugu wacantahay qof kastoo xoolo-dhaqataa qodobka labaad ee inuu fahmo ay lagama maarmaanka tahay waa xaqiiqada jirta ee ah hay-adaha iyo dalalka shisheeye aynu gacmaha hoos haynaa inaanay dan iyo heelo ka lahayn xoolahaaga noolaanshahooda iyo geridooda toona hay-adaha iyo deeqaha shisheeye barnaamij gaara ayaan hore ugaga hadlay oo waxba gurigeli maayo waxaanse kuu sheegayaa waxaa habboon in qof kastoo Soomaali ah uu fahmo in hay-ad kasta iyo deeq-bixiye kasta oo dalkan jooga aanay u joogin dan la'aan wastaadka iyo kuulida gurigaaga dhisaya ujeedkeedu maaha inay guri kuu dhisaan intaad adigu shacabka Siiriya ama shacabka Yemen ama kuwa Tigreega dhibkooda ka warwarto ee ka damqato in ka yar ay dalalka shisheeye iyo hay'adaha shisheeye adiga ku warwaraan ama si ku damqadaan dhibkaagu iyaga dhibkooda maaha uma baahnidee Allah isku filan haddii aad fahanto aan soo koobay haddaad la fahantay in haddii ay abaar dhacdo iyo haddii aanay dhicinba ay labada jeerba xoolahaagu waxa ay u baahan yihiin ay tahay daaq iyo biyo waxaa habboon inaanad baryootimin ee waxaad samaysaaba ay noqoto inaad raacdo taladan allaha roobka iyo abaarta keenaa uu kugula wadaagay suurta Yuusuf aayaadkan hortada ka muuqda garo aayaadkani inay sabab quraanka ugu jiraan sababta quraanka ugu jiraan maaha in laynoo sheego nin riyooday iyo nin turjumay hadday riyo macno leedahay riyooyin kala duwan oo kuwa cod ku riyooday iyo kuwa kooca ku riyoodayba inta waa laynoo sheegi lahaa sababta laynoogu sheegay waa in marka abaar dhacaan aynu ku badbaadno Nabi Yuusuf boqorkii Masar u sheegay in 7 sano oo barwaaqo ah iyo 7 sano abaar ay isugu xigi doonaan sidaa darteed oo ku taliyay inuu waqtiga barwaaqada sii kaydsado wixii isaga iyo qoomkiisu ay 7 sano ee abaarta ah inay lahaayeen sidii buu yeelay idii dunyadana uu ku badbaaday abaartii dheeray ee 7 sano ahayd waxba ma yeelin adigu intaas u mad u baahan tahay inaad samayso inaad waqtiga barwaaqada ka dhigato 3 talaabo ayaad u baahan tahay inaad qaadato si aad labadan aayadood u baxdo koowaad la kullu abaar ba kaalan lahayne intaan abaar layn inaad xoolaha bariibiso lacagta ka soo gasha aad qayb ku iibsato sahay
مثلا داق يبيو أي أنت كل بعدين وقت عبارت لعلت قبل أدوالك أطاقي بيها وكيسان هيدا كيسته أبوك قياس قوانيا ترى حولها وأينيهين وحنيمة أنا دويران هيسته صحيح بلاد هو ذكرته وأدنى لقطه حلو مركع عبارة دعوه waxaad isticmaalaysaa daaqii biyihii kuu kaydsanaa ee aad kasii tabaabushaystay nooca daaqaad iibsanayso iyo sida aad u kaydsanayso dad baa jira khubar ah oo aqoontooda leh la tasho dadka Soomaaliyeed ee aqoonta jaamacadeed u leh cuntooyinka xoolaha iyo sida loo kaydiyo kuwii aan haysan meel wax ku kaydsado xaqooyin barkad iyo dhismayaal cusub oo buuq iyo colaado hadhalin ma baahnid barkad iyo dhismo toona si aad kaydnimo dhigato kuwa wax alxama ka iibso weel aad wax ku kaydsato waxaad samayn kartaa xataa taayirada gaari ximaarka oo kale ama gaari dameerka oo kale si aad marba meel ugu jiidato waxaa kuwa aad u baahan tahay si aad abaar uga badbaado waa intaa kuu muuqata oo aad cid kastana kaga maarmi kartaa abaari ma jirto mar haddii xoolahaagu baadiyo biyo haystaan sidaa yeel qur-aanku kula taliyey oo khasaari maysday waxaa iyaduna muhiima oo sheegis mudan abaaruhu way noocyo badan yihiin innaga garaadka iyo aqoonta ayaynu ka abaarsanay waxaynu nahay dadka marka aanay barwaaqa jirtana hay'adaha marka abaartu jirtana hay'adaha u kaashanaya barwaaqadiina wayna laynaysaa abaartiina wayna laynaysaa اللهم حريستي عن حشد عقارين وكيلها هداغوغا كو قرنا جنوبو ياكو ترين قراد يواي عرق إن الرحمة تبقيت Thank you.